بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد waxaan halkan saxaafada marinayaa anigoo aan jeclayn saxaafada iyo in hadalka badan ee meelaha dadka qaarkii ay macaashka ku doonaan laakiin marka aad aragto in aan laga maarmayn in la hadlo waa lagu kaliifaya waxaana ii muuqatay arrimaha laascaanood ka socdana laga aamusnaan karay waayo adigaaga hadaad baqayso aad leedahay qole aan ka baqaya idin laynaysaa maxaad aniga dawladii ku tameesha igu joogta marka maxaad iga dul qabanaysaa hadaad baqaysaba waadan kama hadli karaynin cidda aniga ay dilaysa aad sheegto oo farta ku fiiqdo maxaad igu dilaysa hub igu wadataa magaalada dhexdeeda qofka la dilayo sanad walba ilaa 2010kii ilaa maanta 2021 aynu marayno dilka ku xukuman laascaanood ee Soomaaliland ay joogto dawladda ka tahay oo aan burca ka dhacay oo Hargeysa ka dhacay oo Boorama ka dhacay oo halka ay ku xukuman tahay arintaas maanan garowsan wax la garowsan karana ma wax aqal gali karana ma qofkuba uu naftiisa aanu nabad galaynin maxaa marka dawladda u yahay dawladda marka ma jidadi wax meesha laga qabanaya oo loo jooga marka ma jidadi waan xusuustaa halkan minbarkan baan ka hadlay 2011 bishii May bay ahayd baan filayaa maalintii wadaadkii Sheekh Maxamed Ibrahim Samatar la dilay galab bay ahayd waa la dilay ninkii dilay uu soo cararay nin baa damcay inuu qabto ka soo daba cararay isagana waa lagu tiliyay meel aan ka fogeyn baa booliisku fadhiya shaqaas ka tamashay meelahaas oo kale galamaayo meel dhex maray meel buu galay magaalada ciidankii baa dhooban hareeraheeda Soomaaliland ciidan waxay lahayd awood halka joogta booliiskii baa jooga habeenkii markaan dhex marayno meel kasta booliis baa ku joojinaya hadda waxa caado noqotay haddii booliis fara badan habeenkii magaalada lagu soo daayo wartol caawaya qoolan caawa cid baa shiraysane baa dadku cufay noqotay caadiya dadka yagii ayaa waxa la doonayaa amba ayba dhacday in been iyo dibindaabiyo iyo saxaafad iyo hadal waxaan maqlayaa lagu laayo waxaan maqlayaa laascaanood waa la qabsaday isaaq baa ka baxay meel walba in karin walba ayaa markaa waxa ka soo dhacay in feeraha ka guntan wale laascaanood waa la qabsaday dhaxalkii aabahaaba lagu qaybsanayaa in gaarsiiya waxaan aad u la yaabanahay oo la ilaawayaa dadka waxa ku hadlaya iyo kuwa soo yaacaya ee aan badhul bahantee amba kuwa xiiseynaya dadka burburka iyaga iyo dibindaabiyada iyo ummadaha kale ah waxay ilaaween haddii isaaq baxo ama la baxay dadkii kale ee madaxda laascaanood ka ahaa ee magaalada lahaa ee la lahaa dadka waxa shuraya kuwa soo yaacaya miyaan marna meeshu jiro la isweydiinay ma isaaq unba systemka Somaliland kamid ahaa ee wasiirada lahaa ee xildhibaanada lahaa ee madaxda kale iyo ciidamada lahaa ee guurtida lahaa warta dadka miidan isba weydiinay miyaan la mid qabin ay anagu kamid ahayn anagu kamid ahaa horta hadii jiraan ma tirahdeen waxaan leeyahay marka mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmadu iyo kuwa laamaha amniga kala degan arrintan qaabilsan intuba waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka ee meesha degan kama soo jeedaan oo garan ilmo dheera maaliyadda ka haysta ma waxaan hadlayaa wadaan orfada sadde oo ciidanka idinka haysta warada faraan ugu jiraan waratan iyo maqalde hadaafin inta way saqba xukuma taliya qaybtu way saq xisaabiyaha maaliyaddu way saq oo abara wal taliya waa garad ciidamada ninka u sareeya ee gobolka Sool وأنا كاتقنا وأمرتعه ورجعنا لسدي. دقمة يشد جودة نبتقليه ذي وحوم يعني تذكر كهين. جودة نبتقليه واسع. هاي فلا تقول ورانا وحنا ما سوان وتشوقنا ونمر خاتبان ونهاي. سيدا أنت الله يروى ترسلنا ما أنت معاد أنتي نت شلون معاد أنتي لبو وترى لهم بان أنو كنت ذلا إيه مكان وحانو هينا ما شرتو ميدا كلام عبا وحوقش عبا وحوقريه. Somaliland
وهيروي ولا حسابتي ويدي oo yaa nala xisaabtamaya cali khalif isagoo leh war Somaliland la wada leeyahay buu dhintay faadan hadda isagoo Somaliland la wada leeyahay buu doonay YouTube ka gal war Somaliland ba xukunta gobolka taliya qaybtu waa iyaga xisaabiyaha maaliyadda ugu sareysa waa habaro wala waa iyaga war galaalidnimo dheera yaad u jeedaa markaad waxaan u jeedaa adigaagan wareysanaya wariyaha ee saa qaban xitaa u jeedaa haddaad iska saarayso adigu systemkii oo cid gaara aad u gacan gelinayso Somaliland aad ka mid tahay xisaabtana aanad la xisaabtami karin ciddii midda daabkeeda haysay adiga qorshahaagu muxuu yahay micid baad wuxuu gashin xisaabtan baad gashin isa xisaabtan ma ogola taa wuu isku raacsan yahay shiikhooda iyo shariifkoodu baarlamaanka idinka u badan wasiirada nafta leh wasiirka maaliyadda waa idinka arrimaha gudaha waa idinka arrimaha dibadda waa idinka bal hal meeloo bannaan horta sugde bal hal meeloo bannaan war dadku wuu idi arkayaa ama koonfur joogo ama waqooyi ha joogo ama meesha doonaa joogay ummadda wuu idi arkayaa waxaan sugaynaa horta dad bilaa talaam ma nihin kuwa sidaa u hadlaya ee ujeedo kasta ha kala hadleen wax ma garato hadalka miiriyaha malaamuuda xarago iyo qurux iyo waxa la shubayo iyo lugooyada dadka iyo kuwa inaanu dunno oo burburno oo dhismaha iyaga iyo magaaladayada iyo barwaaqadayada ka xun intaba waxaan leeyahay ciidankii qaranku ma bixin xitaa bixi maayo laascaanood annaka ayaa joogna waxaanu ugu talinayna nin waliba waa arkaasaanu ugu talinay 2007kii sidii ay ahayd markaan anigu soo galay ee ciidanka qaranku soo galay ee systemka Somaliland ee barakaysani loo yimi dhulbahante ma wada hadlayn waxaan leeyahay kuwa soo ordayo markii aanu aragnay beenta tirada badan ee ciyaalkayga iyo naagahayga lagu gooyay ciidanka amniga magaalada aniga ayaa mas'uul ka ah oo xukuma aniga ka saaray ciidankii oo iri ciyaalka iyo naaguhu waxay fahmi doonaan ciidanka qaranku banaanka haystaago bilayskow socodka badan baldaaya dadka jibaysan waxa mu'adar u yara muuqatay oo ka dhacday meel walba ila gaarsiya laascaanood la qabsay waxa leeyahay warun baan idin sheegayaa lama qabsanayo xitaa u burburin mayno laakiin hadda waxaad moodaa dadkii guryaha lahaa ee iskuulada ahaa ee aanu islahayn horumariya ciyaaladoodii iyo naagahoodii inay ka adkaan waayeen qaarna ay kuwa waxaa ku hadlaya run moodeen waxaan idin sheegayaa inta laga bilaabo berito dulqaadkii iyo inaanu ilaalino nin waliba hadeeru soo hangagaaray waxaan idin farayaa reer laascaanood dhulbahanta laascaanood ragga lacagta ku haysto ragga guryaha lahow ragga jibaysan ee masaajidada ka kacayo anigu haddana kuwa ugu lacagta badan ee ugu guryaha wacan how anigu idmaan fahmin waxaad rabtaan haddaad wadaadda tihiin sheeganaysaan wadaadada intooda badan ragga masaajid kale dhiigga hal xasuuqo war ciyaalkayaga la xasuuqi maayo laakiin waxaan leeyahay ciyaalkiin iyo naagihiina reer laascaanoodow ninkii miyir qabowna ilaasho haddii laamiga gubista laga dayn waayo inta maanta laga bilaabo oo buuqa iyo calamada madmadoowe la soo baxayee meel ay ka shaqaynayaan annagu aanaan arag la dayn waayo amniga waa soo celinaynaa anaa soo celinaya rag ilaahay saaqa baana laayow inagaas leeynayna ogaada wixii dambe gobolka fadqalalle ka geysto inagoo dhulbahantaaba isu imanayna amnigana waan sugaya anigaa sugaya waxaan leeyahay dadka sharwadayaasha ah sharkooda waa ma u soconayee iyo idin galaafan shacabka laascaanoodow hablahow gabdhahow ciyaalkow waanu ka xunnahay wixii maalmihii dhaweyto dhacay ee ciidanka qaranka ee amniga igsidhinadii
weliba waxaan leeyahay haddaan ciidanka Somaliland annagu aan xukunno uusan ahayn way dadaaleen wixii la sameeyay boqolaal baa ku dhiman waxaanu farnay dadaal intaasaa dhimatay wallaahi dhowr boqol baa dhiman lahaa haddii ciidan aan dadaalayn oo dalka iyo dadka lahayn oo annagu aan xukunno haddaan ciidanku ahayn oo ilaalinayno xabadooda meesha qoriga meesha wallaahi boqolaal baa dhiman lahaa laakiin waxaad moodaa hadda in lagaba fursan waayay oo dadkaan ilaalinay naftoodina ilaalinay hantidoodiina ilaalinay guryahoodiina ilaalinay nabadgelyadoodiina ilaalinay 24 saac ee soo socda haddii aanu aragno shoobare dambe haddaanu aragno laami la gubayo haddaan anigu arko gabadh yar iyo iyaallo laami lagu soo daayay amniga faraha ka bixi maayo wixii soo gaadhnay idinka ka mas'uula nimanka karmaha ka soo dhacay la leeyahay heblu ka yimid dubaantaha aan gobolka u dhalano naga daayo kalaalada ka gobolka u dhashay ninkii amni iyo wanaag ku joogayo ku joog kii kale oo aan iska ka qaban waxa la hadal hayaa waa in la dila madaxweyne ma wasaas weey madaxweyne jugta jubba ku horeysay waynu ognahay Somaliland inuu dubaantaha oo madaxa loo soo duuftay ku bixi mayso annaga weeye Somaliland isaaq maahe waa annaka kulaas aanad waa Somaliland talaas aanad aniga weeye number 1 way dubaantaha halkan jooga wasiiradu hawshooda qabsadaan door dawladda dhexe ku jiraan amniga cid leh waa aniga weeye iyo saraakiisha kale ee ciidamada qaranka dubaante ee xudun jooga ee Woodward jooga ee kala bari jooga waxa baana xukuma kuwa kale ee Somaliland galbeedkeena aniga xukuma waxaanu idin leeyahay raga karmaha ka soo dhacay isku sawiraya magaalada Laascaanood dhexdooda markaan xabadu uga turay ciyaalkayga naagahayga iyo guryaha quruxda badanow haddaad ka bixi weyda haddii aan ognay guryaha ku jiro waanu ka shaqeynaa magaalada dilka Laascaanood aan ku noqdo dilka Laascaanood waxa geeysta dhulbahante ninka dhulbahante ee isaaq baan dilow aniga ayaa ana ku cadeynaya aniga ma waxaad haysataan iyo rag madaxda ah ee Somaliland ee dhulbahante niman iyadoo isaaq iska kiin leynayo intay idin dilaan og oo baad noo haysataan haddana iska aan muraad ka lahayn dilkiin madaxweyne ma wasaas weey madaxweyne jugta jubba ku horeysay marka dadka wax galka laga dhameeyo dumarkan iyo ciyaalkan laga xatooya way joojinayaan in saaqin laayim rag uga badno haysataan mise waxaad noo haysataan cid ay dilaysa rag ogaan weyda adeer dad idinka damir wacan dadka idinka turis badan idinka aan isleenahay waad ka aqli badantiin baan isku wadanaa anagu waxa sameeyay waxaanu leenahay si aan fidmo kale u dhicin ka bax magaalada in aynu dhulbaantay adilaan in Somaliland magaalada ka baxdo ku rabo hadda ragga magaalada halkaas ka soo dhiceen warday ciidaad isaaq doonaysan burca isaaq degaya ciyalka madaxa duubta burca ku laayay dhulbaanto burca ku laayay ciyalka shoobaraha kuwa dhex galo oo shoobareeyeen hadda xiriyaha ciidamadu yaalaan taga maxaa daaraha isugu soo xilxasaaro intaad ciidamada ka soo dhuumataan meel dhex ka soo baxdaan maxaa gobolka xabada looga bilaabay ciidanka soo dhaafisaan deelaaya ninkii saaq doonayo ninkii caruurtayada doonayo waan ku ognahay intaan dul qaadanay ninkii caruurtiisa ceshan waayo wixii ku gaar adiga qaba 24 saac ee soo socda idii amniga khatar ku ah aniga ayaa sarkayna iyo ciidanka qaranka ee dhulbahante iyo Somaliland ba anigu aan xukumo idii amniga la soo